dhaqanka weeyaan dhaqanka Soomaalidu nasiibkeena dadka waayadii hore diinta si fiican caalamka dhanba uma haysan laakiin diintii hadda markii la bartay dad baa dhaqankoodii iyo diintoodii completely different kala noqdeen way kala fogaadeen absolutely ay kala duwan yihiin miyay jiraan safiyay waxyaabo adiga mataqaanaa xitaa xagga luqadda xitaa xagga luqadda Soomaaliga ayaa waxay tahay yani eriyo aan ku kala duwanahay oo mataqaanaa adiga aad fahmaysid laakiin xaggan aan laga fahmin waxa jira wax aad adigu si u taqaan laakiin xaggan kale si looga yaqaan ma jira oo aad leedahay qofkan waa Soomaali oo wada hadlaysaan wuxuu ku sheegay laakiin wuxuu ku sheegay xitaa aanad fahmaynin baa jirta miyay jirtaa dhacdooyin caynkaas oo kale oo kugu dhacay ama aad la kulantay eriyo aad adigu si u haysato haddana si kale lagu yiri asaga Soomaali ahte oo aad fahmi weyday aniga waxaan ku walaalha way jiraan ani walaalkay baa waxa loogu waqlalay magaca loogu waqlalay wuxuu ahaa Cabdishuun صح Cabdishuun شون markaad galbeedka joogto waa magac wanaagsan laakiin markii dambe Soomaalida ku biirtay waxaan ogaanay magacaas inuu yahay magac meelaha qaarkood ceeb mustaqiil ka ah oo aan qof loogu yeeri karin marka wiilka dib baan ugu magac dib baan waan ka bedelay markaan ogaanay inuu meelaha qaarkood ceeb ka yahay marka magacyada waxyaalaha loo yaqaan shun aan ka soo dhaxkay shun xagga galbeedka maxaa laga yiraahdaa boqor shun horta waa maxaan ku dhahaa waa leaderka shinnida waa boqorka kinka shinnida weey so shun waa boqor weey waa kin oo kale sax laakiin meelaha qaarkood waxa looga yaqaanaa halkan kama sheegi karno ma fahanta may kuma sheegana laakiin intooda faraha badan lagu iska fahmayaan bay la tahay anigu markaan qurbaha soo galan magacyo xataa waxa jira daamaha qaarkood qaldan baa jira sida kinsi oo kale meelaha qaarkood aanan la isku wici karin baa jira marka way jiraan hadallo erayada maacuunto dhan Soomaalidu kambilida waxa u kala taqaanaa different oo ma aragtay weelasho kale sida jalxad marka la jalxad tiraahdo dhinaca kalena ashuun tahay dhinaca marka tiraahdo mudaacad ay dhinaca kale qaada noqoto marka busta tiraahdo ay ku beerta noqoto wax badan oo maacuunta guriga horta alaabto dhan aad baa loogu kala duwan yahay ma fahant marka way jiraan far badan oo lagu kala duwan yahay iyo war far badan lagu kala duwan yahay baa jirto xaggana si laga yiraahdo waxaan ku weydiinay waxay ahayd mataqaanaa maadaama aan ummad Soomaaliyeed nahay inaynu ereyadiina kala faa'iideysano waayo dad fara badan oo waxa jira halka ku jira oo aan uba dhignaynba ereyada aan horaba u maqal kanaynu ku hadlayno anigu imika ku hadlay waxa jira dad fara badan oo ina daawanayo oo mataqaanaa erey fara badan ay sheegayaan oo oranayo waxa si toro maxay uga jeedaan fahmaynin baa jira marka horta Soomaali waynu wadana oo mataqaanaa jinsiyadii waynu wadaagnaa dad muslimiin nahay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa mataqaanaa iska kaandhigay inaynu dad isku sinjiyada nahay oo aynu mataqaanaa diirkii isaga egnahay dad muslimiina aynu nahay oo yani waxaan ku kala duwanahay ma jirto haddana lahjadii ayaa dhinac in looga hadlaa Soomaha ma way jirtaa hadda Hargeysa iyo Boorama intay isku jiraan oo loo kala wax yar bay isku jiraan wax badan bay ku kala duwan yihiin hadda baasha la yiraahdo gisaasada baashan qururadan faanuuska qaarna waxay yiraahdeen gisaasad qaarna waxay yiraahdeen shigni waana isla galaas ka yar marka wax badan oo waxa jira af Soomaali haddana kala duwan oo laba magaalo oo talaabo u jirto waayo maxaa keenaya walaal af Soomaaligii baa hodan ah oo hal shay baa wuxuu leeyahay intaasoo magac ayuu leeyahay oo kala duwan inagu halkaynu kaleena nin dhakhtar waxa la yiri Minneapolis Soomaalidu waa tamanasooda ku badan Soomaali baa u timid oo marka maalin walba waxa u timaada patients badan oo Soomaali leeyahay marka wuxuu rabay inuu barto ereygan sig xanuun inuu barto rabay qof baa u yimiday wuxuu yiri waan xanuunsanayaa wuu qoray maalintii dambe qof kale u yimid wuxuu yiri waan bukaa buu qoray maalintii kale qof baa u yimid waan qandhaysana waxa xanuunkii I am sick halka Mareykanka sick ka ah ayaa Soomaali waxay ku noqotay 10 magac oo kala duwan
وانت بعان باناي marka وليتا meelaha qaarkood baa xanuunka la yidhaha waan caataysnahay looga yaqaana marka ها xanuunkaasoo keliyaati halkii eray ayaa inaga wuxuu samaynayaa 10 magac oo kala duwan buu leeyahay hal shay baa waxaan u kala isticmaalaynaa intaasoo shay adduunyada waxaa kale in kaga duwannahay kaltuunay laba qof oo meel ها wada jooga hadda saaxiibaday asafiyadiina waan u jeedaa halkaasay ku jirtaa ها af Soomaali baan ku wada hadalnaa haddana shay kastoon soo qaadno iyadana magac bay u taqaanaa ana magac baan u aqaanaa sida hadda intaan kuu sheegayo kale iyadu xamar bay ka timi ana galbeed baan صح ka imi ay sheegayso dhan waan fahmayaa maxaad ka wadaa ma odhanayo waan garanayaa waxay ka wado iyadana waxaan anu sheegayo dhan way garanaysaa maxaad ka wadaa ma odhanayso waxaad u malaysaa haddii la kala qoro laba luuqadood buu noqon lahaa laakiin waa wada Soomaali waan isla fahmaynaa afka Soomaaliga haddii la micnayn lahaa qofka afka Soomaali ku hadla waa qof ku hadla dhowr luuqadood oo kale qof waxaad arkaysaa may ku hadla oo maxay ku hadla oo haddana lahjadihii baa wax yaa kala bedelan ayaa Djibouti kala haddaad ka duwan timaado ها haddaad Djibouti to xamar haddaad tahay oo intaad Djibouti ka timaado xamar tagto ها waa la idin kala turjumaya bilaha hore oo dhan intaad la qabsanayso haddaad xamar ka timaado oo Hargeysa timaado bilaha hore oo dhan waa la idin kala turjumaya haddana marka dambe wixii way isku soo dhacayaan wuxuu noqonayaa head language marka adduunyada waxaynu kaga duwannahay luqadda hodanka ah ee qiimaha badan ee wanaagsan ee halkan markaad Englishka aragto hal eray bay dhowr micno dhowr wax baa hal eray loo isticmaalaya inagu hal magac ayaynu waxaynu u isticmaalnaa hal shay baan u isticmaalnaa 10 magac iyaguna hal magac bay u isticmaalayaan wax badan sida erayga right oo kale right marka tiraahdo right waad saxsan tahay oo kale waa lagu isticmaali karaa waad saxsan tahay right ko midigta gacanta midigta waxa la yiraahdaa right صح iyaga intuu afkii ka go'ay ayay hal shay waxa u isticmaalayaan dhowr shay oo kala duwan inagana hadalkeeni afkii intuu batay ayaynu hal shay baan u isticmaalaynaa 100 magac marka adduunyada waxaynu kaga duwannahay waxyaalo badan oo unique ah oo inaga haddaynu Soomaali nahay ها kaga duwan kaga duwanayaas kaga duwannahay sax waan gartay waa maalin dhaweyd hore aan kaas ayaan dhex galaa ka qosiyay maalin dhaweyd hore gabadh baa waxay keentay dharka lagu seexdo bay keentay sax marka gabadh bay inuu soo garaacdo waxay ku tiri waxaan keenay way ku tiri yacni wax duraaxad u dhow duraaxad baan keenay way tiri marka duraaxadda anaga waxaan u naqaanaa duraaxadda sariirta lagu goglada ee dee go'a weyn ee sariirta baan u naqaanaa mugti kabacdina inantii way carartay waxay siris duraaxadaha ka soo qaado wala duraaxadan u baahnaaba oo way carartay wallahi meel aad iyo aad u dheer bay ugu tagtay markay guriga fadhiisatay wax ku tiri walaalkeen duraaxaday eegayo waxay u soo saartay darkii lagu seexanayay bay u soo saartay waxay ku tiri wala duraaxadan kuugu yimi xamaaladaha inagu xamaalad weyna xamaalada iga daayo duraaxadaysi waxay tiri marka maxay tahay kuwan baan kuu sheegay anu duraaxadaha ku marno marka waxa weeyaan waa gooyada intaa gabadhaasna waxay carartay inay gooyaal soo iibsato duraaxad soo iibsato iyaduna gabadhan waxay iibinaysay xamaalado iyo dhar lagu seexday iibinaysay marka haddana labadii qof Soomaali bay ku wada hadlayaan oo dad Soomaali bay ku wada hadlayaan taan kaga way dhacdaa aad iyo aad way dhacdaa waa waxyaabaha mataqaanaaye dee aynu qaniga ku nahay u baahannahay inaynu ogaano dhinac walba wixii lagaga hadlayay ama dee ereyadii kelmadihii wordskii lagu kala duwanaa qorano wiil baa wuxuu soo qorayaa waa bijamo bijamo afkan baa lagu bijamo waa la yiraahdaa maxay barka lagu seexdo waxaan leenahay magacyo fara badan oo aynu ku sheegnaynu leenahay xaggan kale aan ku sheegay qudhooda waxay u yaqaanaan duraaxadda u yaqaanaan oo waka duraaxadda haddii la yidhaahdo anugu sariirta la saara baan duraaxad u aqaanaa amba saasaan u aqaanay amba duraaxad go'a sariirta lagu guloodo ama duraaxad sariirta lagu guloodo aan u aqaanay laakiin waxaa jirta meelo looga yaqaano duraaxadda xamaalada ama bajaamaha lagu seexdo looga yaqaano aad iyo aad ayaa jirta marka taasina waa taa weeya taasaynu kusoo dhaafaynaa safiya waxaan doonayay xagga inaynu u noqono iyo dhaqankeena
ubadka marka mataqaanaaye ubadkeena marka loo heesayo waxaa jira heesa fara badan oo ubadkeena loogu heeso dhinacay doonto ha noqoto ama dhinaca ammaanta ha noqoto ama dhinaca marka ubadka mataqaanaaye la dhiirigelinaya ha noqoto ama dhinaca marka la seexinaya ha noqoto caawa waxaan doonaynaa bal inaad nala qaybsatid mid ama laba heesaha lagu talagalay caruurta oo midda kale waxaan maqlay hees aad maalin qaadaysay oo aan aad iyo aad uga helay oo ahayd inaad fariin diraysid yacni xaajigaaga kaa maqan oo kale oo aad fariin u diraysid mise whatsappkaad ugu diraysid mise whatsappkaad ugu duubaysay horta riwaayad bay ku jirtay la odhan jiray maxaan ku dhahdaa qurbihii lagu yaacay qisadii ka dambeysay laakiin maansidaa yar riwaayadda gaar bay ka ahayd oo anaa watay waxaan kasoo qortay maxaan ku dhahdaa hibe maxamed hudeen gurigeedan yaa haysay oon kasoo qortay marka waxay ahayd riwaayad bay tiri siday ii sheegeen la yidhaahdo riwaayadda magaceedii ma hayo laakiin riwaayad 60meeyadii la dhigay oo maryan mursal ay atirisho ka ahayd ayay horta maansidaa yari walaalo ku jirtay erayada waxaa sameeyey allah u naxariistee xasan sheekh muumin ayaa sameeyey marka maanse ahaan bay ahayd tii baan anigana waa anigii whatsappka halyeeyada dunida hanadkan ka doortayow wadnahay hogaya eeba uga dhigay horseed waxay ahayd heestaas iyada taas bay gaar u ahayd heestan kaleed adi weydiisay kaltunay ilmaha heesaha ilmaha loogu heeso heesta ilmaha loogu heeso horta waa bad aad bay u badan tahay minutkaa hooyadu ilmaha ay dhabta ku hayso situationkaa yare lagu jiro ayay hooyadu ka heesaysaa inay hooyooyinku cajiib ahaayeen ilmihii marbaad intaad u maydho ood wax walba siiso ayuu isku oynaya waad arkaysaa inuuna xanuunsanayn waad arkaysaa inayna hurdahayn waad arkaysaa inayna dhibaato waynin uu iska yaro calaacalaya maanta oo dhan buu iska calaacalaya mid baa jirta ilmihii gaajoonayo amba hurdo iyo gaajeys kugu beertay marka waxay leedahay anaa garan waxaad la geydhan gubaay gaajaa ku haysa lulaa kugu geedamaysa ee ha soo gala geelu xerada intuu geelu soo galayo isug mar waxay arkaysaa inuu naaskeedii ilmihii una dhergin karin oo dee ilmuhu markuu bilo gaadho naaskii ma dherginayo waxay leedahay manaas kiibaa gabnoobay manaas kiibaa gabnoobay hooyaday gabnoobod godolka wey marka waxay leedahay way u sheegaysaa inuu dee meeshii caala la-aan jirto markanuu iska oynayo oo ilmihii iska yaro kibir oynayana waxay leedahay gardaaran nowgobi ma hoydo hooyaday gardaaran nowgobi ma hoydo gardaara nowgobi ma hoydo hooyaday garteeday sheegatahay gardaranow gobi ma oydo marna way faanaysaayo waxay leedahay maadoo ree hebel iyo ree hebel ku dhaleen ayaad kibir iyad ooyigseebad u ooyi kartaaba dee adi ree hebel iyo ree hebel baa ku dhalee adoo laba hooyaday adoo laba dhaalaad dhexdood sideed dhayalkaa hoyde marka marbay waxay leedahay armaan gaari waayaa in maaragtay andaysa soo gaari weynaayo aan anu kaa hor dhintaa bay leedahay oo maaragtay dee hooyooyin badan baa ilmaheedii oo yar dhinta waxay leedahay wax waliba waa bilood bilood baabuuri saartay bilood badda ila dhex maaxday haddana waxay leedahay ku diran doonaaba mooye inaan xataa ku diran doonoon inaad wax yar meelahan iga soo qabato aan gaari doonaaba mooye bay leedahay ma ogi ay dumarku waa iska mixnad meedhanoo marka maaragtay dee waxay dumarkii xaafadda caruurahoodii bay mar ku baabi'inaysaa waxay leedahay xashiish bay korinayeene
hooyaday xashiish bay korinayeen xariiri hortaa ma dhalanin hooyaday xariiri hortaa ma dhalanno maysa bay leed carruurihii dhanaayay xaafaddu korsanayeen baaba waxaa laga soo qaadayaaba xashiish bay korinayeen xariiri ma dhalanno xashiish dhulkay ku jiiday dhulkay ku jiiday sax may way badan yihiin saa weliba kuwa carruurta loogu heesayo kuwa kale runtii heesa fara badan waxaan arkay adoo ku luuqeynaya marka aad iyo aad baan runtii ula dhacay Safiyaay maasha Allah tabaarakallah de ilaahayna wuxuu ku siiyay cod yani dahabiya ayuu ilaahay ku siiyay marka maasha Allah dhamaantiinba maasha Allah Safiya u soo qora insha Allah taas bay ahayd Safiyaay laakiin caawa waxaan adiga iyo martida inala joogta iyo inta ina daawanaysa iyo in walba waxaan ka codsanaynaa mala xabad halkoo heeso oo mataqaanaa jacayl inaad ku martisoortid ciao horta jacaylka xilligiisii waan soo yara dhaafnaa ku soo weynaanaya ana jacaylka kolley horta heesaha wadaado badan baa inagu jiro caawa waxay odhan doonaan sheekadaad noogu yeedheen iyo sheekadaad noo gasheen isma laha maya waa dhaqankii ku jirtaa kolley heesuhu waa suugaanteeni weeyaan markaa kama dheera dhaqankii kama dheera bulsho aan suugaan lahaynina waa bulsho aanba jirin badi suugaantu waa inoo sii adkeynaysa soomaha dhaqankayna sii haysa bulsho markaad doonaysid inaad baratidna waxaa la eegaa dee suugaantooda iyo dhaqankooda la eegaa soo maha aad iyo aad horta suugaanta Soomaalidu waa very important weeyaan waa tiirarka kamida ay ummadi ku taagan tahay weeyaan suugaantu Soomaaliya hadaynu nahayna saa uma qiimeeyno suugaanta waxaynu aragnaa yani wax aan yani jirin baynu aragnaa laakiin waa very important wadan hadda doonaysid inaad eegtid waxa la eegaa suugaantooda la eegaa Soomaalidu horta walaal way iska rabshad iyo dib jecel yihiin oo kaltunay hadaad u fiirsato 100 sano ka hor gabay la qaaday oo qabiil lagu caynay way xafidsan yihiin absolutely 30 sano ka hor gabay soo baxay oo maxaan ku dhahaa ammaanahaana way ilaaween marka inta badan way iska dagaal jecel yihiin laakiin adiga asxaabtaada almost 500 qof bayna daawanaya hal hees qalcadeedaan insha Allah biidmillahi kariim kusoo gabagabeynayna ummadda Soomaaliyeed ee caawa horta dalkan la ku jirto waxaan idin leenahay qalbi furan gacmo furan walaaltinimo hooyanimo habaryarnimo intaba waan idinku soo dhaweynayaa dhammaantiin ragga Soomaaliyeedna waxaan idin leenahay ha ka xanaaqina wixii run ah ee laga hadlayo inkasta oo kaltuunay walaalo rag badan oo dhibanan arkay oo haweenka maalintoodaan siinaynaa iyagana maanta waxay ahayd dee rag bay ahayd haddaad waqti u haysana iyaga laftirkooda waan ku soo dari karnaa kaltuunay laakiin only haweenku ma dhibana wallahi haween badan oo wax badan oo kaltuunay ilaahay raali ka ahayn qurbaha hadda aan joogno sameynay ayaa arkaysa anu waxaan arkay oon ishayda saaray haddii horta la kala tago calafkaa dhammaada kaltuunay bini aadanka calafkani wuxuu leeyahay expire date buu leeyahay waad kala tegaysaan waxaa laga yaabaa waxaad adu khayr u malaynayso shar ku abaajira waxaad shar u malaynayso khayr ku abaajira waxaa laga yaabaa ninkii hore inta aad kala tagteen ninka wanaagsan ilaahay inuu kuu soo wadaariyo oo noloshaadu sidii hore walaal ka sii fiicnaa gabdhaha Soomaaliyeed ee marka la kala tago waliba waxaan la hadlaynaa waa hablaha qurbaha jooga marka la kala tago ilmaha ku adkaynaya aabahood waxaan oran lahaa ilaahay uga baqa ilmaha waa lagu la dhalay saad u jeceshahay buu isaguna u jecel yahay aduna hooyaa tahay isaguna waa aabo anu waxaan u soo taagnaa oon arkay kaltunay rag laga qaaday child support oo caruur badan dhalay oo maalinta cashuurta la gaadho waxoogaa dadka horta Mareykan jooga cayd lama siiyo oo maaragtay dadka cayd qaatan ku jiraan laakiin sanadkii cashuur yar oo 2000 4000 qofba wuxuu shaqaystay u soo noqota cashuurta aanan ilmihiisa ku xireysan karin oo iyadu ay u diido caruurtiina ay badan yihiin oo labadoodaba ay ku filan tahay waxaad arkaysaa nin Soomaaliya walaal bixiya child support bixiya oo ilmihiisina aan arki karin wallahi waan aqaanaa dadkan sheegay dad aan sheeka ku maqlay maaha waa dad aan garanayo
ilmihiisii child support baa laga qaadaya lacagtii uu bixinaya monthly wuu ku qasban yahay lesson-kaaba laga kansalaya hadduu bixin waayo haddana ilmihii telefoon uma diri karo in the same time waxaan arkay oon anu usoo taagnaa wiil Soomaaliyeed oo ilmihiisii uu dhalay inta telefoonka loo dhiibo la leeyahay aabaha cay oo sidaa ku dheh maangaabnimada dumarka qaarkood ay ku dhaqmaan miyaad jeclaan lahayd markaad 5 sano jirtay amba 7 sano jirtay aabaha inta telefoon lagugu dhiibo inaad soo caydo maanta sidee dareemi lahayd kaltuune dadku hooyadaabaad ugu nacbaan lahayd no qalad aad u weyn baan u arkaa waayo ilmahan markaad aabihiis cays adma jecesha aabaha in la caayo aduma jecesha aabaha in la caayo aabaha laflagatay waan arkay wiilal Soomaaliyeed oo ilmahoodii oo waliba wax taraan waliba wiilkaasi wiil ilmihiisa wax tara way waxa jira wiilal iska daad oo maalintuu gabadha furay ilmaha ay ugu dambeysay laakiin kani waaba ku daba socdo oo tara ilmihiisa telefoonka inta loogu soo dhiibo wallahi billahi aadi waxyaalaha ilmihiisa kula hadleen adigu ka naxayso maanta aniga aabahay hadii taa ay soo muuqan lahayd oo ano maanta intan da'dan jooga hadalkii aan aabahay idhi baan xasuusan lahaa soo gabadha Soomaaliyeed ee waxa sameynaysa iyo ta ku dhaqmi lahayd ee isku day lahayd ba waxaan u sheegayaa inaan ninka Islaamiyad waxba yeelin ilmahaaga uun aad dhibaato u geysatay ma hadha marka barnaamijka waan soo gaabinaynaa wax badan baan ku jirnay waxaan idinku soo dhamugo insha Allah dhinacayga kulleeyda kaltuun baa su'aalaha iska leh hadaad soo wadato kaltuunay maye wallahi Safiyay horta arinta adimka soo hadal qaaday maxay tahay dhowr cisho horena ma taqaanay waa soo hadal qaaday waan ka hadlay ilma yar oo aad dhashay walaal aan kaaga yara ma taqaanay kaaga yar daba taga ilma yar oo aad adigu dhashay oo aad la jeceshahay wanaag ilmahaaga waxa la jeceshahay wanaag bad la jeceshahay ilmahaaga waxa la jeceshahay ilmahaagu inuu maskax fiican oo caafimaad qabto ilmahaagu inuu ku koro ma jeclid ilmahaaga inaad wiiqdid oo ilmahaagu uu aabalaan iyo ma taqaanay dhibaato iyo sir ilmahaagu inuu ku koro hooyana ma jecla markaad same thing markaad ilmaha aabihii aad caaysid de waa ilmahan u dhalay sidoo adiga aabaha boosku aabaha ku taagnaa ayuu ilmahan aabihii u taagan markaad aabihii ilmahan aad ku agcaaysid ama aad xumeynaysid ama aad qof kaleba la soo caaysid waxaad ka soo qaadaa adigoo aabaha la xumeynayo ama aabaha la caayayo qof dariiqa maraya hadduu kugu yiraahdo aabaha caankaasu ahaa yacni waxaad haysidba dhulkaad dhigaysaa qofkii toos baad ula dagaalamaysaa dhiigga ku karaya soo maaha daada waxaad ka soo qaadaa ilmahan yaraad wadatida dashaad hooyo leedahay ku ag cararaya aabihii sidee baad xumaan ugu quuri kartaa amay wallahi horta dhibaatooyinkaasi way iska badan yihiin haytanisha gabadh baa halkan iigu soo gashay oo maxaan ku raay igala hadlaysa gabadhaasi waxay ku jirtaa gabdha aan bari hore barnaamij aan soo qaatay maalin kale inuu sheekadooda ka hadlaynaa gabdhaha ajnabiga ee awlaadda lagu dayaco marka walaalo horta waxyaalaha hadda dhaca qurbaha hadda ka dhaca waxyaalo fiican maaha waxaynu dhaqan u leenahay iyo maaragtay diinteenu xataa ay banaysayna maaha horta dhamaantiin raaliyaada qarqartu waan leeyahay taleefankaygu meeshii aan saaray uu qaldamay marka gacantaan ku hayaa waan gargariiraya waan is arkayaa marka kaltuunay walaalo ninka haddaad kala tegtaan waxaa dooni ku kala tega marba meesha awlaad hadday timaado ma kala tegi kartaan ilmihii baa meesha jooga mar walba waad kulmaysaan because ilmaha saad adigu u jeceshahay ayuunbu isaguna u jecel yahay aduna hooyaa tahay isaguna waa aabo in the same time na kaltuunay waxaa la ogaaday ilmaha qurbaha jooga mar walba waxay jecel yihiin missing baarankay jecel yihiin labada waalidka maqan ayay jecel yihiin aniga bari baa qofka bini aadanka haduuna isagu horta runtiisa tiisa ka hadlan dadka kale tooda inuu ka hadlo de ma fiicna waa in horta adu taada aad ka hadashid aniga laftirkaygu hablahan aan ka hadlaya baan ku jiraa kaltuunay nin baan kala tegnay caruur aboodan kala tegnay baan korsadaa caruurta markaan waagaan abood kala tegnay reer walba dee markay kala tegayaan difficult bay ku kala tegaanoo dee dadna indiyagoo nabada oo isku qoslaya ma kala socdaan meesha waa inuu colaadi timaado waa inuu dagaal yimaado laakiin waxaa loo baahan yahay in awlaadda dartooda wax badan looga tanaasulo caruurteeda abood markaan kala tegnay muddo 3 bilooda isagoon caruurta arag ayaa maalin uu yimi anoo maqan biisu u keenay shaqadan ka imi guriga anaa jooga wax walay rabaan anaa siiya cuntadii anaa u kariya iskuulka anaa geeya dhar hadday rabaan daftar hadday rabaan wax walba anaa diyaar loo dul taagan waxaan imi caruurtaydii oo faraxsan weliba kuwa u yaryaraa oo dee farxadda ka muuqata aad yaabayso markaan soo galay wuxuu yidhi hooyo
guess what aaba maanta noo yimi biisuu noo gaday biisadii ayaa waxay ka weyn tahay baa waxaan anu qabanayo dhan maalintaas waxaan go'aan ku gaadhay maadaamuu ilmahayga xabad biisa ah uu aabihii u gaday farxadda intaa la eg ay u soo kordhisay in aan wax walba oon wiilkaa Soomaaliyeed ka tabanaya aan anugu dhulka dhigo ilmahayga dartood hadda saxaab baan nahay caruurtiisa uu ka warhayaa wiilo korsadaa wuxuu karaankiisa uu siistaa uu kaxeeyaa uu geeyaa waxaad arkaysaa dumar kule ilmihii bayuuna arki ninkii kala tagnay isagana noloshiisu raacday ajnabi baad kala noqoteen ilmihiina ma arki karo arrintaas ay u shaqaynaysaa kalsooni ilaan ilmihii anoo waa dhashay isaguna wuu dhalay haddii lagu dhihi lahaa isha ilmahaaga ma saari kartid ma qaadan lahayd adug may walaalo qalad aad iyo aad u weyn baan u arkaa Sofia qalad aad iyo aad u weyn baan u arkaa walaalo qof walbaana situationka uu soo maray ma taqaanay aniga laftigaygu situationka waa kula soo maray kaama dheeri runtii marka de caruurta aabahood inaan ma taqaanay u soo dhaweeyo oo aan iyagi u amaano oo aan idhaahdo aabihiin ma taqaanay de waa inaan libaxsan ka taabtay wax walba aniga igu sameeyay xitaa intaan ma taqaanay daboolka saaro aan idhaahdo hayaa aabihiin oo kale ma aragteen oo aan u amaano oo u soo jiido haddana aan hoosti og anigu waxaan tabanayo de yacni waxaan tabanaya anigu dabool baan saartay halkaa baan dhigtay dabool baan saartay laakiin iyagii baan waxaan uga dhigayaa aabahooda inuu yahay aabo ma taqaanay wanaagsan oo aabo uu yahay de ma taqaanay oo ay u haystaan maantana ay ogyihiin leeyihiin wale aabahayo waa caynkaasu daba cararaya wax walba aniga igu dhacayo dhibaato walba aniga igu dhacday damage walba aniga igu dhacayo dhibaato aniga isoo gaadhay waxaan jecelahay haddana ubadkaygu inaanay ma taqaanay aanay dareemin inuu ma taqaanay aabahood uu yacni ama uu dhib ba ila soo maray ama ay dhibi meesha timi ama aan anigu dhib tirsanayo ama aan anigu inay dareemaan ma jecli walaalo 24 hours ka 7na waan ma taqaanay la hadla ka warhaya wuu u yimaadaa wuu ka warhaya wuu kaxeeyaa wuu la socdaa wuu la joogaa yacni inuu la degan yahay guriga oo kale yacni ayuu ma taqaanay uu la joogaa taana waxaan u samaynayaa yacni inaan anigu waxaan tabanayaa aan iska ilaawiyo ma taqaanay aan dhibaatada ka saaro waayo de waxaan inagu unbaa keenay inagu unbaa waalida waxaana ilaahay baa qoray furitaanka iyo ma taqaanay guurka labadaba de ilaahay baa qoray walaalo waa calafo inagu xagga allay ma taqaanay ay ka qoranta horta waa run way qoran tahay oo qofka halkuu marayo iyo wuxuu samayn doono iyo inta meher ee gabadhan ku dhacay doonta iyo inta awlaad ay dhali doonta waxan waa wax loox maxfuudka kuugu qoran oo waxaad adu kantaroolkooda haysan ma aha laakiin waxa loo baahan yahay dadkii walaalo inagu dhaqan baynu lahayn ninka horta Soomaaliga waa inuu ogaado ilmahan uu dhalay ilaahay baa ku adoonsaday inuu ilmihiisa masruufo waa aabo waa ilmahaadii adaa mas'uulka ah maalinta yawmal qiyaama ilaahay aduu kaala xisaabtamaya wiilal badan baa waxay qornayaan shaqaysataa waxba igama baahna marka gabadhii ay single mother noqoto waxaa qasabay inay shaqo tagto ilmaheedii masruuftay oo cararto laakiin adiga ilaahay uu kugu cadaabi doonaa maalinta qiyaame ilmahaaga haddii adoo haysta aad ka hakrato taa waxaan uga socdaa child supportigan horta la isla tegayaana wuxuu keenaa dhibaato badan buu keenaa kaltuunay gabadha markay ninka kala tagaan isla markaa la taliyayaal horta tirada ka badan oo dhammaantoodna kugula talinaya waxaan adiga dan ku ahayn samcadaadana u fiicnayn ilmahaagana u fiicnayn baa jiro oo adiguna asxaabad ka dhiganaysid baa jira gabadhii way lalaysaa maxkamad bay tegaysaa ninkii bay dacweynaysaa ninkii inkamkiisa marka la eego waxaa laga yaabaa inaa $100 amba $1,000 kolba awoodiisii wixii uu noqoto lagaaga soo jaro isaga mar haddaad maxkamadda geyso wixii maxkamadda kuu qortay unbuu ku siinayaa sax aniga taas waxaa igala fiican hooyadu ilmaha aabahood inay si kale ula xaasho oo maaragtay ay tiraahdo amba family ha la adeegsato amba culimo ha la adeegsato horta khasab ninkii wax bixin waaye walaal isagoo shaqaysta ilmihiisa wax tari waaye dee waa khasabba horta kaas in khasab looga soo qaado oo qaar baa dictatornimo ku jirtaa oonan ilmahoodii wax taraynin oo waxaa jira Tanisha, hi, we're talking about the Somali families problem and I will call you after I'm done this and waxaa jirta qaar bay walaalasan sheegay ay khasab ku tahay qaarna waxaan kula talin lahaa waxaad xeer ku weydo horta xoog ku raadin waxa xoogga lagu helo wallahi anigu halkaas baan magaaladan Columbusna waa la iga yaqaanaa 6 caruur aabahood baan kala tagnay maxkamadna maan tagin lawyerna uma tagin
laakiin familiga Mareykanka waxa qasaba markay kala tagaan ee ay laba address kala qortaan khasab ninka iyagaaba soo raadsadaba aabaha isagoo ina gabadhu dacweyn kuwan child supportiga iyagaaba soo raadsada asloon gabadha ay amba cayr dalbato amba ay kaadh caafimaad dalbato khasab iyaga soo raadsada meesha markuu tagay inkamkiisa wixii la iiga soo goynayay waa la iiga soo gooyay waanu isiya ka badan inkamkiisa wuu ka badan yahay intay dawladdu ogeyd iyo waxaas wallahi lacagta uu jeebkiisa iga siiyo ayna iyagu ogeyn ayaa ka badan lacagta uu maxaan ku rahdaa uu nagu siiyo meesha child supportiga inta isagu bixiyo uu siiyo ayaa ka badan wax badan oo ilmaha abooda waxaad ka helaysaa haddaad wanaag kula socoto waxaad ka helaysaa wax badan oo waxa dawladdu kaaga qaadi lahayd kaaga faa'iido badan ilmihii wuu kaxaynayaa ilmihii kasoo jarayaa baabkii iskuulkii buu kaxaynayaa wuu usoo adeegayaa ciiddii buu kaxaynayaa wuu soo ciidsiinayaa there's money waad aragtay walaalo ilmahana back to schoolku waa waxyaalaha ugu kharashka badan ee qurbaha jaakeedadii dharkii dhaxanta waad aragtay marka I love you too Tanisha wax badan ayaad ka helaysaa laakiin haddaad maxkamad istaagto ood lawyer qabsato ood baawarka dawladda isticmaasho waxaa laga yaabaa $50 in lagaaga soo jaro weligiisana $50 buu dhiibayaa ilaan adaa maxkamad la tegay oo hawshii adkeeyey gabadh walba ilmaheeda aabaheeda way taqaanaa walaalo rag waxaa jira iyagoo haya aan bixinayn rag waxaa jira iyagoo awooda ilmahoodii ka akranaya kuwaas maba diidani in laga qaado laakiin kii aad og tahay inuu bixinayo ka bixinaya ee wixiisiina aad qaadanaysa ilmihii aad u diidaysana ilmihii baad iska galaafanaysaa walaashayda Soomaaliyeed ilmahaagii baad dhibaato iyo inkaar iyo uqubo iyo dhibaato iskaga korinaysaa meeshan ilmaha waxa lagu hadii nin baa bari ila shaqayn jiray Tanisha barigaas aan ku sheegayay nin baa wuxuu ii ahaa supervisor maalin baa wuxuu arkay inuu murugaysan oo iska yara xanaaqsano uu ii yeeray wuxuu yiri maxaa ku helay Safiya waligii kuma aragado xanaaqsan waxba email aad markii dambe waxaan u sheegay waxaan caruurtayda abahood baan istirnay waan kala tagnay so caruurta family problem bay haysta call off kaygu haduu bato iyo dul qaado nin boss oo isaga iga aniga shaqada ninka xukuumana uu ahaa dadkan wax badan baad ka faa'iideysaa markaad u fiirsato ninkii khaniis buuna ahaa hadda ninkaasi haddana wuxuu isiiyey talo wanaagsan wuxuu yiri anigu family man baan ahaa xaas baan lahaa caruur baan dhalay wuxuu yiri anu xaas loo caruur laba waxaan noqday buu yiri khaniis baan noqday gabadhii caruurtaan iga wada dhalay wuxuu yiri caruurtii bay iga qaadatay maxkamad bay Catholic bay ahayd oo dadkan ma diinta ku adag bay ahayd maxkamad bay igeysay wuxuu yiri caruurtii waa la iiga qaaday caruurtii markii la iiga qaaday wuxuu yiri anigu waxa igu dhacay depression waan isku buuqay caruurtaydii oon arki karin murugo badan baa ila soo diristay waxaan u tagay buu yiri kuwani maskaxda dhakhaatiirta caafimaadka maskaxda psychologist aan u tagay wuxuu igula taliyay buu yiri xoog hasaarin caruurtaada inaad ka soo jiidato haddaad caruurta marna xoog ku jiidato marna ay xoog ku jiidato ilmaha wuxuu iigu soo qaaday buu yiri sida rabarka yare lacagta lagu xidho maaragtay maalin walba hadii la isticmaalo wuu dabcaa wuxuu noqdaa waxaan use ahayn ilmaha wuxuu yiri waxay noqdaan sida rabarkoo kale wax aanan adigana ku anfacayn isagana anfacayn naftoodana anfacayn ayay noqonayaan ninka tala kalena uu isiyo wuxuu yiri mahmaah baa jirta buu yiri anu Mareykanku inay mahmaahan maba moodaynba wuxuu yiri Mareykanka waxa la yiraahdaa kill them with kindness naxariis badan ku dil wuxuu yiri wuxuu igula tiriyay mar alla markaan guriga tagoon ilmaha markii dambe wuxuu yiri sabti xadda la ogolaaday markaan tago wuxuu yiri ilmiyoo joogaan isdili jirnay wuxuu waan islaynaa waan isdirnaa wuxuu muurkaygo dhan bay bedeshaa anoo xanaaqsan baan ilmihii keenaa wuxuu bisayr baan u dalbaa gamekaas ciyaaraan waan xanaaqsanay hadalladii wuxuu ilmihii anoo hadana xanaaqsan baan celiyaa markii dambe wuxuu yiri dhakhtarkii wuxuu igu yiri dhibaato kasta oo adigu dareemayso xanuun kasta oo ku haya cadho kasta oo ku haysa mar walba iyada waa inaad u qosasho markay kula hadlayso ay caruurtaadu ma arkayaan wuxuu yiri way qaylisaa way soo shiidaa aqalka nin kale ma keeni kartid iyaduna way ka saxsanaydoo nin xumaado faraha ka baxay oo noqday umadaas ilmaheeda inuu wato uu hadhowto niman gurigii keeno caruurtii ay ku koraan inay tahay sheekadani maxaan ku dhahdaa inay sax tahay bay ilmaheeda u diidaysay dawladdiina waxay qasab uga qaaday 2 maalmood inuu ilmihii looga qaado waa aabo marka wuxuu yiri waxa la igu yiri kill wuxuu sameeyay buu yiri kill them with kindness kiba sameeyay wuxuu yiri anu xanaaqsan waan qoslaa
ilmahaygaasoo guriga jooga ninigama keeni kartid yaa okay maxaan ku dhaha on time baad keenaysaa guriga hadda soo celiyaa okay ilmahayga waa inaad saa tiraa okay markii dambe wuxuu yidhi waxba igu soo tuurtaa all you can say is okay adii oo loo xanaaqsan wuxuu yidhi iyadoo muurkeeda bedelan yahaan baxaa anoo farxsan wuxuu yidhi maalintaasi farxaddii iyo qosolkii aan ilmahayga ku bilaabay ilaa hadda waan ku wada joognaa marka dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa especially hablaha wiilasha aad kala tagtaan marnaba waa inaanay arkin your painful moment iyo adoo xanaaqsan iyo adoo murugaysan iyo adoo dhibaataysan waa inaad qarsato dhibaatadaada ilaa already waad kala socoteen ragga Soomaalida sida lagu yaqaanana mar walba waxay jecel yihiin gabadhay kala tageeni inay liidato oo ay dhibaataysnaato oo ay cawlnaato oo ay u darsato oo markasta markuu arko maalinta furayay ay ku xumaatay jecel yihiin marka waxaan idinkula talin lahaa inaad qarsataan dadkiina carruurtana ay aabahooda ka qarinin ها waxay rag iyo dumarba wax ay la tahay inay maxay tahay labada qof markay kala tagaan uu qof walba u dhinaciisa jecel yahay allayle kii uu iga tagay waa ka dayacmay allayle markaan ka tagay waa ka dayacantay marka labada dhinacba waxay jecel yihiin dadku markay kala tagaan inay leerka qofka ka soo xidhmo leerka qofka ka soo xidhmo laakiin noloshu saas maaha qof walba noloshiisa wuu sii soconaysaa wuu noolaanayaa wuu qurux badnaanayaa laakiin waxa meesha ka baxay waxa weeyaan de wax wada qaybsigii ama noolaashii la wada noolaanayay mataqaanaa nolosha lagu wada noolaan baa meeshii ka baxaya muhiimaduna waa inaad ubadka si fiican u wada korsataano labadiinuba noqotaan laba qof oo mas'uula oo maskax weyni saaran tahay kana fakartaan ubadkiina mustaqbalka ubadkiina ay ku korayaan waayo ubad waa meesha yaala haddii aanay labada qof waxba u dhali lahayn oo ay mataqaanaa saa ku hortagi lahayn dee laysma jijiiteen laakiin mas'uuliyadda maalintaa tiri waxbaan dhalayaa mas'uuliyad baad qaatay isaguna mas'uuliyad buu qaadaa mas'uuliyad baad qaatay mas'uuliyaddaasina ubadkaa yaryar ayay mataqaanaa dhexdiinii ilaahay ka beeray kuwa inaa ilaalisaan kuwa eegtaan ayay mataqaanaa important kuwa taa weeyaan marka inkastoo aynu mas'uuliyadda Soomaali haddaan nahay aanaynuba safiyay aqoon mas'uuliyadda ubadka ubad marka dhalaysid mas'uuliyad aad u culus weeyaan inaguna waxaanu haysanaa unde ubad waan dhalay daha wuu iska koraya ilaahay baa korinaya ilaahay buu korinaya ha ilaahay caafimaad wuu siiyay laakiin waa mas'uuliyad aad iyo aad u culus maxay kula tahay walaal waa mas'uuliyad culus ilmaha inaad koriso ood kaalin geliso waa waxa ilmaha u dhashay ilmaha horta iska dhal maahe waa basar u dhal saa horta markay qoysku kala tagaan dadku saddex xun bay noqdaan kaltoonay labada markay kala tagaan dad isku dhibanaa oo kala raystay oo markaad wiilkii aragto iyo gabadhii markaad aragto aad labadiiba arkaysa inay kala raysteen oo maad aragtay dhibaato weyn isku qabay labadoodu sax dad israbay oo balaayo kala qaaday oo maaragtay labadoodiiba isku hiloobay oo maad aragtay markaad gabadhii aragtana aad leedahay alla gabadhani wallahi wiilkii baa u fiicnaa way baaba'day wiilkii markaad aragtana aad leedahay alla reerkiisii baa u fiicnaayo soo kan maad aragtay ka daray labadiiba ay dhibaato ka muuqato waxaad kalood arkaysaa labadoodii oo mid raystay oo kii kale maaragtay uu dhibaataysan yahay waad aragtaa saddexdaa unbaa walaa loo kala baxaa ilaahay waxaan ka baryayaa kuwii calafkoodu dhammaado kuwii kala raystay inay horta noqdaan hadduuba calafkoodu dhammaaday dadka awlaadda isku haysta mar walba isdila isjiijiita is haysta dad israbo oo badan baa jiro oo siday iskugu soo noqon lahaayeen iyo meelahay isku soo mari lahaayeen aan garanayna way jiraano gabadhi ninkii iyadoo rabta leedahay haddaan u jilco oon tuso uu ogaado inaan rabo he's gonna treat me less than one awal ahaa amba nin le waa inay iyada ka timaado inay reerka isku soo celiso oo laba kala taagan oo maaragtay labadoodiina is rabaan wadada telefoon walaal please telefoonka joojiya Soomaalida waxba lagama karo television iyagoo ku jiro arkayso bay haddana ku soo garaacayaan maxaan ku dhahdaa marka dhibaatooyinka walaalo saas bay wax u kala wada duwan yihiin oo wax walbaba uu leeyahay wada gaara wiilasha Soomaaliyeed awlaad dhalaya intay awlaad dhalaan oo ka dhaqaaqaan iyagu awlaadoodii doonaya inay gabadhii koriso 10 sano kadib 20 sano kadibna oranaya ilmaan dhalay oo aabbaanu ahaa de sheekadaasi markii qurbaha la yimi kaltuunay way shaqayn weydeeyo carruurtii dhaqankii westernka ku koraya carruurtii Soomaalida inta laga 30 sano kadib isagoo reerle loo yimin jiray ma aha kuwani waxay leeyihiin maalintan ku baahnaa xageed joogtay baa la leeyahay aabi bay la xisaabtamayaan marka ragga Soomaaliyeed waxaan kula talinaynaa ilmihiina
idinkaa ka mas-uula idinkaa dhalay ilaahayna idinku idin weydiin doonaa hooyada maalkeeda ilaahay ma odhan ilmaha ku koriso ha u xamaasho laakiin adiga waxaad ku khasban tahay inaad ilmaha koriso gabadh baa aan maxaan ku dhahdaa reer huustana oonu saaxiib nahay ayaa maalin waxay igu tiri tusmoy dumarku waa silic maadar iyo single maadar hadalkaasi waa hadal aad u weyn waa single maadar dee la garanayo oo loo maadaragtay ay dadku arkayaan inay single maadar tahay iyo silic maadar hooyo kaloo iska silcaysa oo dadkuna u garaabayn oo ninkeediina joogo oo single madartu dhaantana walaal way jiraan oo iska dhibaataysan way jiraan marka wax badan baa jira oo faamiliyada Soomaalida dhex yaala oo dhibaatooyinkan isdaba taaga ay isdaba jooga waxaad arkaysaa nin gabadh guursaday oo ilmo ka dhalay oo gabadh kale guursaday oo ilmo ka dhalay oo tu kale guursaday oo dhaqankii madowga yeesho 5 gabdhood ilmo u kala hayaan oo kala wada duwan aan kafaalo qaadi karayn kuwii hore waa kasoo kafaalo qaadin kuwa kala doonanaya qaar baa waxay u fikiraan inan baa maalin wuxuu ku yidhi tusmay walaalo gabadh single mother aan doonaya inaad ii soo raadiso di barto waxaan ku yidhi single mother maxaad ka rabtaa gabadh maad adigu caadi u guursatido noloshaada iyo maad aragtay dee aad family adigu aad samaysatid wuxuu yidhi wiilka aqoon rabo uma lahayn wuxuu yidhi wiil baa Soomaaliya ii jooga gabadh baan kasoo dhalay buu yidhi single mother waa jadleeyo dee way isku filan tahay wuxuu yidhi halkan waxaan doonayaa buu yidhi gabadh baan wuxuu yidhi safrulla Kanada kusoo guursadayo 2 gabdhood dhashay dacaydna way ku qaadataa buu yidhi wayna shaqaystaa way ku filan tahay haye Mareykan waxaan doonayaa buu mid kale oo single mother marka mas'uuliyad ma qaadi karo wuxuu doonayaa tu already rafaadsan oo ilmaheediiba la kadeedan inuu xabad amba laba intuu ku darsado oo maaray socdo waxaan ku yidhi aduma macdan baa dumarka ka raadinaysaa tan guurso ilmo ku darso tan guurso ilmo ku darso waxaynu dhaqan u leenahay maaha waa dhaqanka aynu dhukan ugu nimi madowga dadka madow baa sida u dhaqma ee wadankan min markaysa kontonka state buu konton ilmood ku kala dhalaya qaar baa idaacada laga soo daayaa oo khasab maxkamadaha ay warqad soo qoraan oo dhasha khasab lagaga xidhaa markuu dhalo uu waxna tari waayo maxkamadu ay goysaa in ninka dhasha laga xidho la dhufaamo sidii xoolaha marka ragga Soomaaliyeed ee arrimahaas oo kale ku dhaqmaya waxaan kula tirin lahaa horta kow inay mas'uuliyadda marka intaanad wax dhalin waa inaad mas'uuliyadda horta baratid ilmahani wuxuu ka rabo haweenku boqolkiiba maxaan ku dhahdaa kaltuunay boqolkiiba 99 haweenka Soomaalidu ilmaha ma tuuri jirin way haysan jireen dhibaato kasta oo ay marto haweeneyda Soomaaliyeed marka la furo wixii lagu furo 5 iyo 10 iyo 2 iyada dhexda u xidhan jirtay laakiin wallahi hadda waxa soo baxay gabdhihii westernka ku koray ee dhulkan ku koray ilmihii sidoo isagu ka yeelayaan hooyadii baa loo soo tuurayaa ilmihii way tuuraysaa magaaladayadani waxa jirta caruuro ay isagiina tuurayaduna tuurto jildan service ku qaateen ilmahaagii markaad qurbo joogto saasay gaaladu ku qaadanayaan marka waan ku dheeraanay baan u maleeyaa barnaamijkan laakiin aad baan horta dhammaan jawaabaha lagama jawaabi karo caawa dadkan halkan waxay soo qorayaan waa wax aad u tiro badan insha Allah waan fiirin doonaa jawaabaha maxay tahay ay soo hole jawaabaha soo qoreenay barnaamijku bay inala share gareynayeen oo common waxay ku soo qorayeen faahfaahinaya mataqaanay waxyaabaha aynu ka hadlayno runtii marka dhammaan aad baan idinku mahad celinaynaa barnaamijkan aan ka hadlaynaa oo barnaamij aan u baahanahay haddaynu ummadda Soomaaliyeed nahay waxyaabo fara badan inaynu daaha ka qaadno oo ka hadalno waayo wax walba aynu caburino haddaynu Soomaalina wax walba u baahan in laga hadlo ama in la furfuro waxaanu jecelnahay inaynu dabalka saarno caburino haddii wixii aan la dabalka laga qaadin oo aan laga hadal oo aan wixii si fiican loo mataqaanaa loo falaqayna dee saasun baynu ku soconaynaa bay ila tahay Sofia waayo waad aragtay dunida nimanka joogno wax walba oo dhaca yani wax laga samaystay barnaamij baa laga samaystay laga faaloodo oo laga hadlo yani si in bulshadii la deeqsiiyo ama bulshadii la gaarsiiyo waxani waxay tahay waxyaabo fara badan waxay tahay waxa jira aynu jaahil ka nahay oo aanaynu mataqaanay aanaynu ka hadal for example arrinta mataqaanay qoyska ama arrinta guriga ama ninka iyo naagta waxa ka dhaxeeya ama gabadhu waxay xaq u leedahay ninku wuxuu xaq u leeyahay caruurtu waxay xaq u leedahay barnaamijyada caynkaas oo kale ah haddii mataqaanay la yiraahdo ka hadla waxa la oranayaa waa dhaqan dumis maxay tahay waa qalad in laga hadlo maaha
in yani waxyaabo fara badan baa la diidaya ama dhinacii dumarkii baa diidan ama nimankii baa diidan in khaladkooda la sheego ama dumarkii baa diidan in khaladkooda la sheego oo gubaysaa marka personal attack waxa dhacaya in mataqaanaa adigii lagu soo ataago lagu yiraahdo maxaad waxa uga hadlaysaa marka soomaalida waxaan leeyahay wax walba oo adduunyadan korkeeda jooga ceeb maaha yani waa laga faaloodaa waa laga hadlaa laga yaabaa inay dawa ka timaado marka aniga safiica waxaanu halkan usoo fadhiisanay inaanu arrimaha faamliga iyo dhaqanka intaba aanu caawa ka hadalno insha allah barnaamijyo kale fara badan oo caynkan oo kale ana hawada waanu idiin soo marin doonaa anoo ka faa'iidaysanaya de safii ka faa'iidaysanaya kulley gabayadeydii iyo xigmadda mataqaanaa maskax aniguna aan badan kuma kabaye inta aan ku kabi karo aan mataqaanaa aan ku kabo safiya wariye iyo waxaa tahay wariye iyo fanaanid baa tahay labadaba kaltuun idin dhuuman dad badan baa wariye kaliya kuwa haysta laakiin kaltuun waa fanaanid heesaheeda youtube-kay ku jiraan hadda caawana halkan kugu qarxinaya barnaamijkan horta ha ka hadlina runtada maxaa la yidhahdaa kaltuunay waxaynu dhaqan u lahayn aamus sheekadan la yidhahda aamus ha sheegin masiibooyinkan dhacaana walaal may dhici jirin waxyaalo yaryar oo dee faamiliga lasoo gudboonaada hadda gabdhaha dhibaatooyinka waaweyn ee tacadiga loo geysta sida maad aragtay kufsashadoo kale waayadeenii hore dhulkeenii waxay ahayd wax mustaxiil ah wax ay laba qabiil isku dilaan oo maaragtay masiibo ah oo weyn bay ahaan jirtay oo maaragtay reerkii gabadh laga xumeeyo reer kale rag bay ka gowrici jireen marka markii la arkay waxyaalihii caynka ayaa aarsiga geli jiray hadda inayna aarsigii ahayn waxay dan moodeen dadkii inaan soomaalida inta badan dad badan oo walaal waxay nagu jira diifta dadka maad aragtay dhibaatada ku wiirsada oo maaragtay ku aflagaadeeya maqaadiir qofku ku timi oo waxaanu qofku galabsan isagu isku keenin oo wax ilaahay qoraya ku dhibaateeya baanu leenahay oo dadka I don't think dad inala mida markay noqoto hadda waxaad arkaysaa for example kaltuunay qof waalan qof shalay taqaanin oo amba dariska ahaa amba magaalada kula deganaa bay maqaadiir ku dhacaysa qofkaas wuu waalanaya qofkii oo waalan oo suuqa ordaya caruurtaadii baa dhulka u taabanaya mana ka qabanaysid waad ku daawanaysaa soomaalidu waxyaalahaas waynu leenahay tiifta ayaynu maaragtay oo isku wiirsada badan baynu leenahay sidaa darteed ayaa waxay dhashay barnaamijkan la yidhaahdana aamus ha sheegin ha hadlin yaan lagu maqlin qarso waa ceeb dee wixii sidii loo qarinayay dad baa qarin waayay oo maad aragtay markii dambe furka tuurtay oo bannaanka soo dhigay barnaamijyadii oo maad aragtay geedihii weliba xididka ka soo bilaabay marka walaalo in la qariyo oo la dhowrsanaadana waa wax qurux badan yaa hooyo haye hooyo waan soo baxaya dhibaatooyinka qaarkood inaan la qarin oo dadka lala wadaago oo dadka kale looga faa'iideeyo hadda dhulkan aynu nimi waxaynu aragnay dhib dhaca oo public laga dhigayo oo qofkii dhibku ku dhacay uu ka sheekaynayo uu leeyahay ani way igu dhacday waxaan doonayaa inaan dadka iga dambeeyo ku dhicin صح inagana laakiin waxa lagu leeyahay aniga igu dhacday maxaa iga galay wixii kale ee ay ku dhacayso waa inuu qofkii daboolo marka arrimahaas way iska badan yihiin laakiin iyagana waxay u baahan yihiin their own time in timekooda la keeno in the same time waxaan helaynaa dad ay dhibabkaas oo kale ku dhaceen oo doonaya inay ka hadlaan barnaamijka waan soo gaabinaynaa insha allah biidmillahi kariim adina xilli dambe kuu tahay baan u maleeyaa kaltuune anigana maqrib baa ii gaadhay كلها ما أديك لفتكاجي متقناي تايم كيبا متقناي نقول يا داود أديك لفتكاجي ودا شيء سات متقناي كعنده وجهي سي gacanta ku haya waa arkaysaa inaan waliba qarqarta ma leeyahay gacanteeda saas ay u gariiraysa waxa la yiri kalsoonay dadka dhowr meelood bay ka soo gashaayo waxa la yiri lix meelood bay ka soo gashaa ma fahantay waxa la yiri laba way qarqadhaa labana way qoydaa labana way qalqaloocataa labadana maxaan ku dhahay way qamtiraa marka laba way qamtiraayo adoo dhaga qabay unba kaltuunay yaa baad ku jirtaa maanta oo dhan waana dhaga qabtay shalay marka wati dhagaha laba way qalqaloocataay oo labadii lugood baa isqabsanayo adoo caadi u talaabsanaya haddaanad ul ku tiirsanayn ma talaabsan kartid
waxaa la laba way qoydaayo maanta dhan ilin baa kaa socoto isha un baad biyaha saa uga tiraysaayo meel ay ka imanayaan ma garanaysid mana ooynaysid laba way qarqadhaaba labaatan aniga igu soo socota gacme bakeeri shaa haddii lagu dhiibo saasay u jaraynaysaa marka waxaan u jeedaa taleefonkayga inuu jaraynaysa ana taa dhagahayaada iga soo socota marka dhammaantiin waan idin salaamaynaa waan idin soo dhawaynaynaa ummadda Soomaaliyeed kaltuunay waan kuu mahad celinaya walaalo fursadan aad siisay salaadii maqrib baa aniga ii gaadhay adina waxaan u malaynayaa adigana waxa ku gaadhaan u malaynayaa taajidkii baa walaalo aad baan kugu mahad celinayaa boqolkiiba boqol waan kugu mahad celinayaa walaalo thank you very much waan ku leeyahay bulshada halkan ku jirtaana aad iyo aad bay kugu mahad celinaysaa dhammaantoodba insha allah dee barnaamijkani ma noqon doono kii ugu dambeeyey waa kaynu ku bilownay bay ila tahay insha allah in fara badan mataqaanaa hadday dhaqan noqoto hadday suugaan noqoto hadday gabay noqoto way buuxdaa safi gabayaa halkaa ka buuxa runtii oo aan doonaya inaan kasoo faqo marka runtii ha waa la sasho wanaagsan baan idin leeyahay waa nala socon doontaan insha allah aad baan dhammaantiin idinku wada mahad celinaynaa safiya aadna aad baan kugu mahad celinaya waan ku fasaxaya iminka wixii laga bilaabo insha allah waa inoo kulantideena dambe ee aniga iyo safiya waan idin soo sheegi doonaa insha allah haddii ilaahay yiraahdo insha allah walaalo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waan idin mahad celinaya dhammaantiin wiilal iyo gabdhaba lama kala xanaaqaana weeyaan barnaamijkani haweenkiina maanu hambaysan raggiina waa sidoo kale marka ha u arkina in maaragtay qayb loo jeedo amba rag loo jeedo sidaan horey usoo sheegnayba wiilal Soomaaliyeed baan dhalay wiilal Soomaaliyeed baan u dhaxnay wiilal Soomaaliyeed baan la dhalanay wiilal Soomaaliyeed baan dhalay ragga Soomaaliyeed dhinacba noogama baxaan ninamada yari baatiin ehelkayga baatiin laakiin xabadaha yara idinku xun dhibaatooyinka idin geysanayaan de markan halkan soo dhigno ha u arkina hadal baa leedahay barnaamijkan waa dhabka hadal anagu wixii dhaba maan ku hadlaynaa oo aan mataqaanaa qalqalooc ku jirin marka wixii ku rabaa way nagu raacsiisan yihiin bay ila tahay de wixii doonayeen inay runta maqlaan way nagu raacsiisan yihiin midda kale kalmad baan doonaya halkan safiya inaynu kusoo afxidhna halkan aan doonaya caawa inaan soomaalidii badanaa iminka waxa lagu weydiinayaa un maxaad aaminsan tahay كلمة محد آمسنت هاي صفياي ويضع قدام يساعدوني أنا كل قيبصة كلسونة يقول سعلي رالها والما إلها اللي محاتري وحي صومالي دي إما كلمة إم بدن لي ويدية وأنا أقول لفتك يسويدية أنا سيرت طبعا محل وقت شيء ده إن هذا محد آمسنت هاي والقولي محد آمسنت هاي مركز ده أنا أقول مركز لي محد آمسنت هاي حنونها ده محد آمسنت هاي ما تري آمسنها ها محد آمسنت والقولي موقت وطنو سوماليدي وي على ما بدت صفياي على ما بدت oo qadiyadihii baa mataqaanaa de maxay noqdeen kumaan kuna qadiyadood bay noqdeen marka dad fara badan baa waxay ii soo qoran mar walba ii weydiiyaan walaal maxaad aaminsan tahay marka aaminaadaasa waxa igu adkaatay sida aan dadka ugu mataqaanaa ugu fasiri lahaa waxaan aaminsanahay marka waxaan idin waxaan aaminsanahay ilaahay baan aaminsanahay qof Soomaalina waanahay oo jinsiyadeedu waa Soomaaliyeed ilaahayna waan aaminsanahay qof islaamana marka aaminaada kale adiga rabtaa maxay tahay ma ay qadiyadaada cadde maxay tahay qadiyadaada marka saasha ayaan doonay caawa inaan qabsado in kasta oo waqtigii mataqaanaa oo aad iyo aad nagu dheeraado laakiin dib baan u dhigan doonaa insha Allah Safiyana waxaan sii doonaa 2 words ba hadda su'aasha waxay ka oran lahayd horta maxaad aaminsan tahay haddii lagu yiraahdo oo aanan de laga hadlaynin diinta waxaa laga hadlayaa Soomaalida gobolada iyo calamada iyo kala googo'a iyo dhibaatooyinka Soomaalida haysta laga hadlaya number 1 shaygu hadduu diiniyan yahay oo lagu leeyahay maxaad aaminsan tahay de waxaan aaminsanahay gabadh Soomaali muslim aan ahay muslimad baan ahay sunni baan ahay oo ma daragtay muslimnimada sunni baan ka sii ahay mahdabta shaafiiciyadan haystaa macnaha saddexda qofka hadaad u sheegto uma maleeyo in de uu ka sii durko calamadan iyo meesha laga doonayna waa inaad tiraahdo Soomaali hebel baan ahay iyo Soomaali hebel baan ahay maxaan ku dhahdaa wixii sagaashanadii ka dambeeyay dhibaatooyinka dhacay burburka dhacay iyo masiibooyinka dhacay iyo qadiyadaha dhacay anigu shakhsiyan tusma hadaan ahay waxaan aaminsanahay 60kii wixii ku horeeyay baan aaminsanahay Soomaali waa isku ka mid Soomaal hadaad ka bilaabanto SOM ba hadaad tahay
you are my brother and my sister. I don't care qadiyadaad aaminsan tahay, I don't care calankaad haysato, I don't care xisbigaad ka soo jeedo, I don't care haddaad blue tahay, haddaad green tahay, hadduu calankaaga geel ku sawiran yahay, xidig madow, xidig cad, xidig cas, ani isugu kay wada mid Soomaali. waxaan ahay shakhsi ummadda Soomaaliyeed u diyaara. Djibouti haddii la soo weeraro qoriga dhinacaygan ka qaadanaya, dagaalka madaxan ka geliya. haddii la soo weeraro Soomaali galbeed sidoo kale dagaalka diyaar baan u ahay. haddii la soo weeraro labada Soomaaliyeed marna waan kala soconnay, marna waan isku soconnay ilaa cadowga noo jabinaya labadooduba, iyagana sidoo kale haddii la soo weeraro South iyo North labadaba diyaar baan u ahay. shakhsi waxaan ahay kaltuun adigana sidoo kale aaminsan tahay baan jeclahay. Soomaali baan ahay, Soomaaliyeed baan ahay. qoomiyadii Bilaal ka dhashay baan ka dhashay, Queen of Sheba qoomiyadeedii baan ka dhashay. dad strong oo diinta Islaamka aanan la gelin oo lagu khasbin oo iyagu maskax banaanadooda ku qaatay oo xaqa banaanka ka arka ayaan nahay. marka de inta ka badan qofkii doonaya ma garanaya de waxa kale oo naga doonaya ka saacada leh. maya aniguna sidaas oo kale waxaan leeyahay Safiya, waxaan aaminsanahay qof islaam aan ahay. Secondly waxaan aaminsanahay waxa weeyaan Soomaaliniman aaminsanahay oo jinsiyadeedana aaminsanahay. marka Soomaali meel walba ay joogto iyo calan walba oo ay sidato, anigu ii simayeen waxaan u arkaa inay ummad Soomaaliyeed yihiin oo meel walba aniga waa dalkaygii. meel walba oo mataqaanay ama ha noqoto Djibouti ha noqoto ama Jigjiga ha noqoto ama Soomaali ha noqoto ama Somaliland ha noqoto ama Gaarisa meesha doonta ha noqoto, aniga waa ii dalkaygii. meel walba oo aan tago hoygaygii baan u arkaa inaan degi karo, joogi karo, ku noolaan karo, ciidaydii inay tahay baan meel walba u arkaa. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan jinsiyadeyda Soomaali tahay, af Soomaalina aan idinkula hadlayo. qof muslimna aan ahay, intaas baan aaminsanahay. haddii aad doonaysaan de ina aaminaad fahantaan, marka aad iyo aad baad mahadsan tahay Safiya, ana aad baan ku mahadcelinaya. thank you. horta kaltuunay dumarku godob ma kala gelin iyagu. sax. dagaalada dhacay iyo burburka dhacay iyo masiibooyinka dhacayna we have nothing to do with it. annaga dumar baan nahay, haween baan nahay. anigu horta alxamdulilah rabbil caalamiin, magaalo kasta Djibouti hadday tahay, Hargeysa hadday tahay, hadday tahay Kismaayo, Muqdisho hadday tahay, Jigjiga hadday tahay, all waxaan u qabaa magaalooyinka caalamka inay iga xigaan. Boorama hadday tahay, intaba midii cimiladeedu i qancisaa baan degaya. midii aan isiraahdo ilmahaaga way u fiican tahay baan degaya. laakiin qofkii isiri meel baan isku soo xidhi, waad aragteen waxaa la odhan jiray waayadii hore, ilaahayow meel maxaa naga dhigin may ahayd in hali deeqdo, ilaah waa naga dhigin. Soomaalida hadda dhibaatooyinka iyo cuqdadahan yaryare hoose iyo waxaan yaryare hoose wax ina wadaya ma ah. waad arkaysaan inaynu noqonnay adduunyada meesha waddanka ugu qanisan ayaynu nahay. ooyal baynu leenahay, badda Afrika ugu weyn baynu haysanaa. kala googo'an iyo tafaraaruqan waa waxa laynoo isticmaalayo, maaragtay baawarkeena lagu jabinayaa. anigu haddii Soomaali ay kala socoto oo 5 dawladood oo 5 calan leh ay noqotana, 5 dawladood oo dhinacna ka wada dawlado eheliyadii baan dhamaanay. kaltuunay barnaamijkan maalin kale aan u soo noqonaynaa, waxaan dadka u sheegaynaa barnaamijkan odhanaya Soomaalidu waa isku dub oo waa isku diin oo waa isku maxaa la yiraahdaa waa isku af oo waa isku maxay odhanaya laba shay oo la qariyo oo qofna meel ka sheegin oo Soomaalida ka dhaxaysa oo ina marnaba ku kala soconaynin. insha Allah barnaamijka dambe ku soo qaadan doona. oo waa isku diintana ka duwan, waa isku dalna ka duwan, waa isku luqadna ka duwan, waa isku midabna ka duwan. insha Allah afartaas mar walba lagu soo celiyaa, afartaaba laba shay oo ka duwan baan insha Allah bidmillahi kariim barnaamijka dambe ku soo qaadan doona hadii la hayra. laakiin dadka Soomaaliyeed waa dadka kullayto ugu wanaagsan inay yihiin baan aaminsanahay. qof Soomaali oo dhibaataysan hadii halka la soo dhigo dhammaantoodba way u kacaan. uguma kacaan waa Soomaalidee, uguma kacaan calanku haystaa. wallahi waxay caalamka kaga duwan yihiin ay kaga hormareen. waxaan noqonay dadka ugu sadaqada badan, dadka ugu waxsiiska ugu badan ee ugu wanaagsan ayaynu nahay. marka dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa Soomaali baynu nahay. amba Soomaali weyn ahaw, amba Soomaali yaro ahaw, amba tu kala noqo, amba Somaliland noqo, amba Soomaali Ethiopia noqo, ehel wada dhashay. waxaynu nahay hooyo iyo walaalkeed, wiilkeeda, gabadh iyo walaalkeed, wiil iyo abtigii, dad aan maaragtay wada dhalasho iyo ehelnimo ay naga dhaxayso ayaynu dhamaanteen ilaahayna taala insha Allah. wiilal Soomaaliyeed wali barnaamijka caawa intaan ku jirno kaltuunay waqti dheer baan ku jirnaa. gabadh Soomaaliya oo erey cayay soo qortay maan arag, laakiin wiilal badan baan arkayaa
oo caytamaya subxaanallah xasan ayaanle cabdiraxmaan ninka la yidhaahdo waxaan horta ilaahay ka rajaynayaa ilaahay inuu soo hanuuniyo de waxaan anagu wax cayana kamaanu hadal cayda intaa leeg waxaan ku mutaysanayna garan kari maayo laakiin waxa ii cad inaad xanuunsanayso waxaan ilaahay kaaga baryayaa caafimaad kaltuna horta waxaan arkeen halkan ku bartay netka waxaan ku bartay waxaan arkay inamadii inay caydi u bateen oo hablihii ay mataqaanaa ay aad iyo aad hablihii ixtiraam fara badan muujinayaan hablihii laakiin hadday noqoto inamadeenii ay mataqaanaa dhooqo ku dhex jiraano 24 saacad meeshaad geshid baad arkaysid inamadii Soomaaliyeed oo wax dhooqaysanayo caytamayo oo mataqaanaa waxun ku hadlayo waa halkay hormood inoo ahaan lahaayeen oo aynu daba fadhiisan lahayn ama aynu mataqaanaa ragayagii aynu ku faani lahayn sidan oo kale ay meel walba uga dhaqmayaan uga caytamayaan marka waxaan leeyahay ragayagii baa tihiin hormood baan oo tihiin yacni adinkaan haagi lahaa marka adinkii markaa sida tan u dhaqmaysaan dee waxyaabo fara badan baa khaldamaya dabcan marka inaga daaya cayda faraha badan leh rag iska dhiga si walba haynoo jabinina baan leeyahay ina jabiso oo dalka inaga jabisee bal waayo si kastaba haynoo jabinina bal istaba qabtaan leeyahay Safiya aad baan kugu mahadcelinaya walaal macaan thank you hayahuna macaan hayahuna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hayo amaana Allah hay baba